mustaqbalkayga waxbarasho oo dhaafiyo mustaqbalkayga gabarnimana oo dhaafiyo noloshayda aniga waxaan ku dhashay Shalambood ku soo barbaaray xilligay qaybta waxbarasho in kamid aan ku soo qaatay kulkayga anoo dhiganaya waxa igu dhacday in nin oo al-shabaab uu yiraahdo waa ka hela sidaas markuu ugu dhahay aniga waxaan dhahay aniga ku jecel mana ka heli waxaan bartaa marka aabahay u tagay markuu u tagay wuxuu gabadhaada isii ma ku siinayo waxay ii barataa kadibna wuxuu isku dayay inuu afduubto aniga dhacdadan waxay igu yeelatay saameyn weyn inuu aniga ninkii afduubto inuu u geeyo awdhagle markuu igeeyay muddo 8 bilood inaan la noolaado nolol waliba aad u xaraar way ii suurta gashay alxamdulillah abna ahaantayda waxaan dareemaa aniga Muqdisho deganahay iskool bulisiya agteeda kulay telefoon waa la iga soo wacaa waa la iga handadaa asaga iyo groupkiisiiba way iga soo handadaan cabsida ugu weyn waxay tahay qofku markuu magacaaga haayo wajigaagana oo hayo ku yaqaan inaad ka baqdaa waa qasab marka cabsi weyn aan qabaa wax inaan iskuulkayga sii wada karin kuwa hadda ku fikira inay ku biiraan waxaan leeyahay ha aadinina ha ku biirinina kuwa ku jirana waxaan leeyahay ka soo baxa meel la jooga maahan